bahda garsoorka oo u horeeya guddoomiyaha maxkamadda sare garsoorayaashooda iyo dhammaan inta ka howlgasha bahda garsoorka oo dhan martida sharafta badan inooga timid dalka UK ee uu hogaaminayo ambassador David iyo taliyaasha ciidamada iyo waftiga kale la socday bahda saxaafadda aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay inaan ka qayb galo maanta xafladda lagu qabanayo maxkamadda sare dowladda ayna caawiya aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa oo dowladda ingiriiska ugu horeyso oo aan maxkamadaha oo dhan inaga caawina meelo badan inaga caawiya waa mahadnaqaynaa iyaga inaguna dib baynu isula hadlana haddaynu Somaliland nahado waxay la tahay sharaf inooma aha maalin walba in layna caawiyo oo inagu waxba qabsan weyna oo hawl inoo taala oo Somaliland dib inay mar walba tirtaa oo dadka ayna caawinayna culayska inaan ka dayno oo haddaynu cid wax tari weyna inagu isku filaano oo isku filaan karnaa ayaa inagu waajib inta waxaan uga gudbi bahda garsoorka marxaladood bay soo mareen si Somaliland soo martayba garsoorkeenu mar wuxuu ahaa inaga is xukumi jiray Soomaaliya dhaqankeena iyo diinta dabeetana waxay noo imray Yurub dabeetana waxay noo keeneen dowladda Ingiriiska ee Somaliland go'aysanaysay sharcigoodii ahaa la yiraahdo common law ayay noo keeneen koonfurna waxay u geeyeen kii Roomka labada sharci baa muddo 6 sano ay haystay 6 kii baynu xorownay gurigan maanta aynu fadhino taariikhdu waxay inagu xusaysaa inuu ahaa gurigii lagu qaaday doodii baarlamaanka 3 bishii June 2023 labada cisho oo ahayd aynu ku tagno Muqdisho shuruud la'aan waxay taariikhdu xusaysaa raggii maalinta awiyaasheen iyo abayaasheen go'aanka gooyay ee qolka ku gooyay inay ahayd niyad wanaag iyo inay Soomaaliya isu tagto oo geeska isu tago oo Afrika hore u marto ayay ku fikrayeen laakiin nasiib darro dad baa qalloociyay oo ka soo saaray inay isla dunto ilaa maantana ay dusan tahay taariikhda raggii halkan maalinta go'aamiyay fishanka ay arkayeen ku caraaran mayno waa ka wari la deedeeyo ee la leeyahay Afrika geeska Afrika hayso banaanaa isma madax banaanaado ha wada shaqaysto waxa wada wadaago talada kala lahaado talada maanta hayeen 6 odayaashaas waa tamaanta loogu sacabtamayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee Eritrea waa la heshiinayaa laba dawlad oo waanu ahaanaynaa waxna waanu wada yeelanaynaa nabad waanu ku wada noolaanaynaa fishanka irsaal isku maray maalinta ay laakiin taariikhdaas ka dhacday qolkan taariikhdaas u leeyahay intaynan maanta fadhidana taariikhdaas ku soo beeganay wixii markaa la doonayay oo imka la raadinayo iyo wanaagii garsoorku 9 sanadood 6 ilaa 60 wuxuu ahaa nooc keeni wuu ka tagnay kuma logay halkan Ingiriiska aynu ku qaadano kii koonfurteenu tagnay waa la qabsan weynay halkaas uu jahaaro ka dhacay labada dal isku afgaran waayay iyadoo la hirig la isku yahay labada dal ay isu tagay ayaa haddana 79kii inqilaabkii military ku dhacay isna wuxuu keenay hanti wadaagii haddana garsoorku uu sii waashay waabatii ayda quraan la nasakhay ee wadaadadu ugu dhinteen ay ku shahiideen ee dadku kacdoon ka bilaabay oo dhowr iyo 21 sano dagaalkaas ka socday haddana 19 baynu nimid 3 sano waxaynu ku jiray marxaladii ahayd inaan ku dhaqano kii hore oo aynu ku gudoominay shirkii Burco dalka wuxuu ku noqonayaa 1960kii markaa garsoorka markuu 3 sano dib u guuray iyadoo oo aan loo diyaarin shuruucda ku awgeyn lahaa haddana waxaan u soo guuray 93 ka bacdi xeerkii la oran jiray axad qarameedka oo isaguna aan markaa tafatireen si guud haddana garsoorkii kaas uga soo guuray oo oranayay axad qarameedku dalka waxa laga sii dhaqmaya waxa uu asaasa shariicada islaamka ayaa uu aasay waxa ay diiday isla markaa shuruucda kale loo baahdo waxa lagu sii dabaqayaa kuwii 1900 ilaa 60 ilaa 90 jiray waxa laga saaray kii 20 sano ka caan markaa garsoorku mar walba waxa iswaayay hawshu qabto oo balaaran oo maalinta dacwo ah iyo xeerarkii uu ku hawlgeli lahaa hagiraha oo intaas oo dhan la guuray dalka gurguridiisa saada dhacday iyo gaabta dhacday waa dhibaatada weyn la kulantay qolada ayna bursan haddana
waxaanu baas galayna dastuurkii caadi cusub aynu galnay oo ah in dastuur loo codeeyey oo dastuurkuna uu raacay un axdi qarameedkii xagga garsoorka oo qodobkaa ka raacay shareecada waasana wixii kalena waxaa lagaga siramayaa kolba shuruucdii ka horeysay kacankii nasiib wanaag muddadaa aynu dastuurkii qaadanay ilaa 2001dii waxa inoo hirgalay aqoon badan oo xagga dhalinyarada oo ilaahay ha ka abaalmariya macallimiin badan oo nooc walba dhinac walba oo weliba ugu horeeyo xagga sharciga jaamacadda hargeysa jaamacada kale waxay soo daayeen aqoonyahan da'yar oo xooga oo ah halkii dalku u baahnaa waxay keeneen firfircooni aqoon cusub qoraallo doodo dhinac walba taasoo awoodsiisa garsoorayaashii hore ee iyagu khibradana hayay aqoontii horena hayay waxaa ku guulaysteen markaa inaa isla heshaan waaye araggii odayaasha hore iyo firfircoonida da'da yar iyo inta dambe hogaamin wanaagsan oo hesheen intii uu yimid ka dhalinyaradii oo dhammaantiin midowdeen marka la midoobo oo xoolo qabsana waad ka arkaysaa maanta maxkamadda sare dhowr sano ka hor sida ahayd maanta ishay leedahay haddii bahwal oo dalka kamid ah marni baarmoriba saa wada shaqeeyana horumarkaasaynu gaadhayna garsoorka waxaanu ognahay inuu yahay midayaha dalka haddaanu garsoorku jirin dalku ma midoobayo waayo qof la cadaalad doonaya cadaaladdeega haya waa xabagta dalka isku haysa waa nabadaynta koobaad haddaan sharcigu jirin la nabadoobi maayo qoyska odayga iyo islaamtu hadday isqabtaan oona garsoor helin nabad heli maayaan carruurtuna way dayacmaysaa labada walaalaheed dhaxalka haddaanay helin sharci midoobi maayaan nabadoobi maayaan markaa labada tiira nolosha kow ka tahay nabadii iyo midayntii dadka labadaba garsoorka saaranta waan ugu mahadnaqaynaa bahda garsoorka ilaa kuwii hore soo bilaabay ilaa kuwa maanta ugu da-yara baranayo waa uga mahadnaqaynaa mas-uuliyadda hayoo loogi waxaa kaloo idin ognahay in baahiyihiina iyo dhibaatooyinka hortaagan aanu qarankeenu daboolin taasina waa taan u lahaa ku bilaabay hadalkayga goormaynu baryada ka baxaynaayoo aanu isku fullaanaynaa inaynu garsoorkeenna dhaqaalihiisa garsoorayaasha iyo bahda garsoorka daryeelo inaynu ammaankooda daryeelo inaynu haybadooda qofeed iyo ka instituushaba kor u qaadno qaranku wuu karaa ee wuxuunay ka mid tahay nacasnimada ina haysata ee waxaynu ku dhammaaday debdebisu waa la islaynayaa reeraha islaynaya hala qabtooy haggale ka dhacday hala hordooy kan hala dhibaatadaasi waxaa idinla qaba ciidamada qaranka sida waxaa idinla qaba shaqaalo weynaha kale waxaa idinla qaba dhakhaatiirta waxaa idinla qaba macallimiinta waa intay nolosha ka horumarinahay waxaynu gelin lahayn doqonnimo kalenu gelinaa markaa waxaan leegahay bahda garsoorka waxaa tihin halgamayaal dadkooda nafta u huray wax badana u qabay kuweeriyada ku cusub oona wadadaasa mari doontaan saasaynu dalka ku dhisaynaa oo cudurad u qaadanaysa intaa waxaan ku dhaafayaa bahda garsoorka waxaan kasoo ku noqonayaa shirka ka socda ceeraf weyn ee nabadaynta ah haldoorka somaliland ee madax dhaqameed leh ee culimo leh ee aqoon-yahan leh ee siyaasi leh ee taajir leh waa shirkii saddexaad ugu weynaa somaliland marka laga soo qaado kii boorama iyo kii burco waa kii saddexaad waanu ducaynaynaa hareeraanu iska taagaynaa waxaanu ka rajeynaynaa inay arrintaas sidaas laga soo dhawaato nabad dadkaan dhibaatada afartan haysana ay ka walaaloobaan dhammaantaan hareer uga taagnaanayna siday nabaddaasi ku iman lahayd nabadduna waxay ku imanaysaa inaan la odhanin maalin walba kii gardaraana hala dhowro kii dulmanaana dul qaado ee in ninka garta daran maxkamad la taago oo shirkaa weeraraa ciddaasaa gar daran tallaabadana waa laga qaaday garsoorayaasha waxaan ugu mahadnaqaynaa qof kula garsooraa ayaa go-aan adag gaadhona kaligay markaad iibsay saasay noqotay shirweynayaashana waxaynu ka sugaynaa ama kaa ceelfin ha haato ama ka baarlamaanka ha haato ama ka xukuumadda ha haato shirka la isku yadaa inuu gaadho ciddaasaa qaldan ciddaasna garbeeleed haddii kale waa la isku wareegeysanaya iyagana waxaynu ka sugaynaa waxsan iyo insha allahu inay soo gebagabeeyaan qodobkaygu xigaa waxa weeye 2019 bisha march waxaa ku beegan doorashooyinkii baarlamaanka iyo golaha deegaanka waxa weeye doorashadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadku ku walaaloobo muddaynu qabsanaa muddadaa qofkaas waanu xilka hayaabaa layihi madaxweyne baarlamaan deegaan goorti dadkii kale waxaa saa loo yidhi in dadku kolba isbedelada ahaan oo generation soo socoyaa qabto ama dadku kolba dee ra'yi la tijaabiyo yaana cidu meel fadhiyo markaa dadka iyaga dadku doortaa ee madaxtooyadu ka mid tahay ee golaash ka mid yihiin xaq waxaana loogu leeyahay ummaddu ammaanadee noo dhiibtay in waktigeedii lagu soo celiyo
hadday duruufo yimaadaanna in muddo kooban la maareeyo arrintaasi waana muddo dhaaf dheer hawsheeduna way noo taala waana mid inoo gaara waxaynu u baahannahay oo aan mar iyo laba ku celinaya inaan doorashooyinkii qabana inooga somaliland oonu keligaan isku tashano oo aynu dhan walba ka eegno oo ay doorashada inoo qabsanto qof waliba qaybu ku leeyahay hadday sii qasantana qoridiina garsoorka qaybta weyn baa ku yeelan doontaan oo dhibaatooda soo noqota hay-ad waliba inta wax kasta tiraahdo garsoorka inooga iyo wax dambe waxaan ka rajeynayaa cidda ay khusadaha xisbiyada leh ee golayaasha doorashada leh ee madaxtooyada in si miir qabta doorashadaasi inay hirgashaan la isugu tago ee shacbiga waayo horumarkeennaa ku xidhan ta ugu yar waxa weeye qofka bini-aadmiga ee 10 sano 5 sano kolba u diyaar garooba inuu doorasho galo haddii aanu hayninba oo kolba dib u dhacdo dee dalkii suniyad samaan maayo ugu yaraan markaa taana waa dhiirigelinaya waxaan ku xigsiinayaa shirka Brussels waxaa loo qabtay Soomaaliya iyagaa lagala hadlayay meel kuma inaan lahayn laakiin waan isku diiday qaabkii loo qabanayay waayo dawladaha qabanaya waxay doonayeen inay u arkaan inay Soomaaliya mid tahay oo la siiyo waxa lagu xaltinayaa special arrangement war special aan loo garabay laba dawladood istagayaan nimanku nama qabsan halkan aanu ku go'aamin anagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xorriyadii haddana ama sidaa laba dal loogu tirgalayo oo wax soo laba dal oo wax loo wada qabanay ahaada haddii kale iyaga u dhameeyo inaguna marka aynu soo baahan wada hadli doonaa waana garuusan garbo arkay nagumay gacan marooji dalbada kamay keenin sidii bay yiraahdeen waxa timid deeqda waxa la yiraahdaa lacag lagu qaybinayaa maxay uga hareynaa horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gobonnimadeeda seesan mayna rabtaan dadka iyaga waxa lagu aarsanay inaan gaar ah madaxweynaha marka UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala hadaan anaga toos wax naloo siiyo ma qaadana sandareele cidoo soo martay dadkuna ku tirsan wax ka badan lacag baan u horay go'aamada iyo dalka in dib loo soo celiyo lixda kaal ku joogay marka taana saasaan ugu sheegno war adduunka ma hadlaynaa qadiyad iyo issue iyo ummad basiirka laga hadlayaa lacagta idinka leh cidaasina saana idinka waa wixii jeebkiina ku jiray annagu mowqifkaas aan loo leeyahay inuu caawinayo ee waxaan ugu tarsanayo ee reeshin kii kalena waa baxsantay cidda dawsaas iyadoo halka taagan oo caalamku loo yahay oo ku heshiisnahay oo ku kala faafisnay waay anagu xilna saaray waxa tagay gudoomiye xisbiga oo maana weyn nagala muntashan talakwana lahayn waana waxa nagu cusub waana arrin u baahan in dib looga wado dib bal iska arko artaas isagii cid la socotay toona ama kaagba noo waqti hatta ma aanan ooyna baxay isagoo farmaajo la joogo ama kaagba waqti ma dhigto wala arki doona wixii ay ku duusay taasna intaasaan ka yiri waxaan uma hadlaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed way qof waliba contribution ku Soomaaliyeed sameeyaa ardayga yar ee isagoo kor waxaad ka xidhaysan aragti iskuulka kala haya ka figa bixin kari waaya ka isagoo aad reerkooda aanu karaynin wax baranaya ka naftiisa horaya maalin walba u dhimanaya inuu xorriyada daafaco ka u dhaawacmaya ka ku awoobay shacbigu iyaga waxaan laashanay oo ku maalta xaq bay noo leeyihiin inaan dareenkooda ilaalino waxaan u mahadnaqaynaa dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah ee beeralayda ah ee berigii horena markii halka lagu jiray caruurtoodii iyo xoolahoodii dalku xoreeyay maantana markay dhibaato timaadaba iyagoo dadka ugu danyarsan neefka ay hayaan iyo waxay hayaan u horaya ciidamada ee xoolahoodii soo bixinaya ee ilankoodii soo bixinaya ee niyada kala jira ee gobonimada ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanan is oran karaa reer magaalka iyo inta ladan iyaga kaba wada sida dalka ka lax jecel badan sida muuqata imika waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan aqoonyahan baayac mushtar culimo dalka dadkan wax u taray nin bas ugu tara mid dhaqaalihiisa wax ku tara mid fikradiisa wax ku tara dhammaan iyagana waa mahadnaqaynaa waxaan leeyahay waxaynu meel ku gaari karnaa inteenaas oo waxaan isku khilaafsanahay si miir qabta waxa la yidhaah is-aamina ogaada xilka inoo yaalay mustaqbalka daada yareeda ay naga dambaysa 100 sano ka hor maxay nagu xus doontaa haddaynan inuu midoobin haddaynan khilaafka dhar iska dhigin haddaynan isu garaabin haddaynan si miir qabtay isu dhageysan deetana in oran beelahdana wada qabsano xukuumadana waa afar qof ka mucaaradka qeelayna waa afar ummadda dhan inta lay waxay u baahan tahay
dadka ay karaameeyeen ay doorteen ama mucaaradahaada ama muxaafadahaade inay talada si mid qabtada isu dhegeystaan meel isla dhigaan ayna ka fikiraan war maxaa dalka u qaban waxaan ahay madaxweynaha dadku ay ku aaminaan masiirkooda waxaan doonayaa inaan wax ku xaliyo wada hadal miir qaba iyo maxaa dalka udana oo ay ka bilowna waa in dalka ku karaameeyo waxba adiga kale lagu qabtaa oo maray dadku qofka xisbi ay u dhiibeen ee gudoomiyaha baarlamaan ka dhigeen wasiir ka dhigeen madaxweyne ka dhigeen dadku way abaalkoodu way u dhameeyeen isaga laga rabaa inuu dadku waxooda u gudo inuu ka celiyo waxba loo baahay qofka marka qolada dadka hogaamsana intaas aan u gudbinaya dhammaantiin bahda barsoorka hawsha loo soo waday mahadnaqaya dowladda ingiriiska iyo dadka caawinaya oo mahadnaqana mar labaad aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum